shaqaalaweynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Maroodijeex ayaa munaasabad sagootina u sameeyay isuduwii hore ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Maroodijeex. Munaasabadan oo loo qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa qayb galay isuduwii hore ee gobolka Maroodijeex iyo sidoo kale shaqaalaweynihii u sameeyay munaasabadani. Ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay xubnihii soo qaban qaabiyay munaasabadan lagu maamuusay isuduwii hore ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Maroodijeex. Waxa ayna ka warameen waxqabadkii kala duwan ee uu qabtay isuduwii hore ee caafimaadka ee gobolka Maroodijeex. Ilaahay waxaan kaaga baryaynaa halkaad maanta joogtay meel ka sareysa inuu Ilaahay ku soo geeyo kulli amaanta intii bedel lagu yiri laakiin aan waxaan kaaga tagayaa oo kaliya waxaad ku xusud mudatay taariikhda qofka xusta baa la yiri isuduwii koobaad ee sagooti loo sii sameeyo intii isuduwii gobolka Maroodijeex soo martay Dr. Cabdi Xasan Xaaji Cali inaynu maamuusno iyo inaynu karaamayno buu inaga mudan yahay sida fiican iyo shaqo wanaagga inoo muujiyay muddadii uu xilka inoo hayay sunnaha dawladnimada in la isbedelo oo mushkilad ma laha laakiin shaqo wanaagga iyo sidii noola shaqeeyay iyo wuxuu gobolka ka qabtay intuba waa mid uu ku amaanan yahay soo jeedinaya sidii fiicneeda inuu la shaqeeyay muddadii inala joogay xilkasnimada lahayd daacadnimada lahayd ee howlkarnimada lahayd ee uu maxay toolay shaqaaluhu u sinaayeen isagana waxaan leenahay wixii uu qabtay jazaakallaahu khayr ilaahay ha u geliyo xasanaadkiisa. Cabdi Xasan gobolka ka hor baan wada shaqayn jiray waa nin dulqaad badan waa nin yani qofku hadduu aayo iyo haddii kale dadka u siman oo aan kala jeclaysan waa nin ay kulligiiba ka maqlaati tihiin inuu yahay nin ummadda u siman oo u naseex badan 2 sano iyo 9 bilood buu xilka hayay runtii waynu ka wada daragsanahay muddada uu xilka hayay sifihii shakhsiyadeed ee uu lahaa ama hogaamintiisa uu ku hogaaminayay isku duwaha caafimaadka gobolka Maroodijeex. Runtii tan waxay u noqonaysaa biography ama taariikh nololeedkiisii dhakhtarka isduwaha ka hasda 2 sano iyo 9 bilood gobolka Maroodijeex. Dr. Cabdi Xasan waa nin shakhsi ah waqaano wana shaqada uu qabanayo si tafsiiran u eega si dhameystiran u eega si aan cadaalad darro ku jiran oo eega xamse ahaan anigu waxaan shaqada kula bilaabay team leader-nimo ilaa hadda oo dhiyamo ahay waxaan la shaqaynayay muddo 2 sano iyo 9 bilood oo xafiiska joogay. Cabdi Xasan aniga wuxuu ahaa role model qof aan ku daydo qof degan tala fiican. gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay isuduwii hore ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka Maroodijeex waxa uu u mahadnaqay shaqaalaweynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Maroodijeex ee munaasabadani ku maamuusay. Kulley shakhsiyan ahaan waxaan ahay maxay nin dhakhtar oo ka tirsan wasaaradda horumarinta caafimaadka markaas meelidii ka tagi maayo waan joogaa waxa weeyaan marna kursiga marna xagga laga soo fadhiistaa marna xagga laga soo fadhiistaa marna xagga baynu uga shaqeynay maxay bulshadeena aynu uga shaqeynay imkana xagga baynu uga soo shaqeynaa kulley maxay meel tagi maayo laakiin waxaan idin kula dardaarmayaa sidii aynu shaqeynaynay sidii wanaagsaneed ee maxay idin la soo shaqeyseen maxay qaabkii aynu isugu xidhnayn aynu ugu dhabar adeegaynay mar walba maxay hawlaha yimaada aynu kala prioritize gareynay